faahfaahinno iyo warar dheeriya ayaa ka soo baxaya dagaal saaka waa berigii hore ee xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay ku qaadeen deegaanka Teedaan oo u dhow degmada Maxasho gobolka Hiiraan. Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa iyaguna difaac adag waxay kaga jiraan deegaankaasi. Waxaan rabaa muuqaalkan ama warbixintan inaan kula wadaago wararkii ugu dambeeyay dagaalka, cidda ku sugan deegaanada lagu dagaalamay iyo sidoo kale wararka ka soo baxaya dagaal maalmihii la soo dhaafay sidoo kale ama maantaba ka socdo bariga gobolka Hiiraan. deegaanka Teedaan oo u dhow degmada Maxasho bariga gobolka Hiiraan saaka waa berigii hore xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa markaasi waxay ku qaadeen weerar iyagoo fariisimay kooxda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku lahayn halkaasi ay weerar ku qaadeen. militariga Soomaaliya gaar ahaan qaybta 27aad ayaana si weyn waxay la dagaalameen weeraradii ay kooxda Al-Shabaab ay halkaasi ku qaadeen. ilaa iyo haatan ma caddo cidda ku sugan deegaanka, balse wararka qaar waxay tilmaamayaan in markaasi laga hortagay weeraro iyo sidoo kale qaraxyo ay kooxda Al-Shabaab ay la damacsanayeen inay markaasi ku qabsadaan deegaanka Teedaan oo u dhow degmada Maxasho gobolka bariga Hiiraan. tan iyo markii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhawaaqay dagaalka dhanka kooxda Al-Shabaab waxaa maalmihii la soo dhaafay ka soconayay gobolka Hiiraan gaar ahaan deegaanka Waaweyn iyo sidoo kale deegaano kale oo shimaado oo u dhow degmada Maxasho ee bariga gobolka Hiiraan. weeraro ay kooxda Al-Shabaab ay ku qaadayeen xubno ka tirsan waa markaasi ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. militariga Soomaaliya gaar ahaan qaybta 27aad ee si weyn uga dagaalama gobolka Hiiraan oo hogaamiyo Ali Cage ayaana sidoo kale weeraradaasi ka hortagay iyadoo dhawaan 6 xubnood oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay isku dhibeen militariga Soomaaliya qaybta 27aad ee ciidamada xoogga dalka ee ka dagaalama bariga gobolka Hiiraan. ilaa iyo haatan dagaalku waxa uu ka soconayaa degmada Teedaan ama markaasi deegaanka Teedaan oo u dhow degmada Maxasho ee bariga gobolka Hiiraan. ma cadda cidda sare waa markaasi sida rasmiga ah gacanta ugu haysa deegaankaasi, balse daqiiqadaha soo aadan ayaa la kala ogaan doonaa cidda markaasi la wareegtay deegaankaasi. balse wararka qaar waxay tilmaamayaan ama mid ka mid ah dadka deegaanka oo qadka telefoon kula hadlanay ayaana waxa uu xaqiijiyay in markaasi dagaalkan oo wali soconayo. waxa uu tilmaamay in xilligan wixii ka dambeeyaba la jibin doono kooxda Al-Shabaab. waxa uu soo hadal qaaday in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed militariga Soomaaliya qaybta 27aad si weyn uga dagaalama bariga gobolka Hiiraan inay markaasi dagaal ay kula wareegi doonaan fariisimaha kooxda Al-Shabaab ay ku leeyihiin bariga gobolka Hiiraan. haddaba waxyaabaha ka soo kordha wararkeena xiga ayaan kula wadaagi doonaa iyo shacabka reer ummadda Soomaaliyeedba. iyo sida ognahay wadanka waxa ku jira dagaal guud oo ka dhacayo qaybaha kala duwan ama goobo kala duwan oo ka tirsan gobolada dalka. deegaanada hoos yimaada Maxasho degmada Matawaan waayadan dambe waxay ahaayeen furan oo cadawga ummadda Soomaaliyeed iyo ciidanka qaranku ay soo fadhiyaan. marka ciidamadu goobo badan ay ku jibiyeen cadawga ay ugu guuleysteen ay ka saareen. ilaahay baa mahad iskale, saraakiisha iyo ciidamada qaranka ayaana mahaddaas mar labaad iskale. iyo haddaan ku laabto shalay tole waxaa dhacay muxuu ahay dagaal muxuu ahay Polkafola oo ciidamada qaranka iyo cadowga isoo hor yimaadeen. dagaalkii waa lagu jibiyey maalintii shalayta ahayd cadowga, ilaahay baa mahaddaas iskale. saakana waxaa dhacay dagaal labaad. wallahi walaalkay meesha wax ka dhacayaan waxaa la yiraahdaa deegaanadu waa fara badan yihiin, difaacyadu waa badan yihiin. area waaweyn agaheeda iyo meel la yiraahdo Sulla iyo Xasaraqi inta u dhaxaysa ayay dagaalada u badnaayeen iyo Xagar. sidoo kale muxuu ahay deegaan la yiraahdo Enabal ayaa meel u dhow shalay dagaal isaguna ka dhacay, saakana ka dhacay. marka intaasoo aag waxaa ka jiray iska horimaadyo iyo dagaalo. marka ayaguna kolley waxay sameynayeen muxuu ahay isku dayo iyo gurmadyo iyo ciidamo ay ka keenaan meelaha kala gobolada. marka fariilaha alxamdu ciidanka qaranka waa guuleysiyey waana iska celiyey. marka saraakiisha ciidamada hogaaminaysa ayaa go-aan qaatay in aagan ahayn bal loo wareego si maaragtay wax looga bedelo jihada dagaalka. duqeyman ayaa xalay ka dhacay deegaanadan, ayaga ka waran arrinta. duqeymaha waa jiraan oo walaalkii waa waxyaabaha lagu naafeeyo cadowga markii ay goob isugu yimaadaan ama ay gaadiid isku keenaan. waxyaabaha lagu naafeeyo waa marka ogo awoodooda lagu kala dhantaalayay. dantii laga lahayna waa laga gaaray waana laga guuleysto. muxuu ahay waa targetkii waa la helay. waa gartay. marka afayane dagaalkii shalay bilowday ilaa maanta socdo maxaa khasaaraha oo ka dhashay oo aan ognahay labada dhinac. wallahi cadowga khasaare badan oo dhimasho iyo dhaawac ah la gaarsiiyey oo ilaa iyo 30 dhimasho ayaa xaggooda laga soo sheegaya. dhaawacana waa kasii badan yahay ilaa 100. xaggeena annaga wax dhaawacyo way jiraan. marka dhaawacna ilaahay idinkiisa waxaan rajaynaynaa in maaragtay ilaahay uu boogadhayo ilaahay caafimaad insha Allah.
wallaahi waxaan rabaa horta inaan ku caddeeyo teedaan waa meel deegaan ah oo magaalo weyn ah. dabcan waa meel furin aan dhihi karnaa oo laba ciidan oo maaragtay ciidankii qaranka iyo cadowga ay soo fadhiyaan. ciidanka qaranka iyo mas-uuliyiinta halkaas jooga waxay go-aansadeen in dadka shacabka naftooda iyo maalkooda ay difaacaan. waa og tahay oo ciidanku muddo ku dhow sanad ayay meeshaas difaac uga jiraan, marka waana guulaysteen. insha allah waana guuleysanayaan. marka deegaanadaas sidooda waa furun, marna waa lagu soo sikan karaa, marna waa la sikan karaa oo ciidanka waa la sikan karaa, marna ayagaa wax sikanaya. marka sidooda markaa nin isdagaalaysaan marna waa kaa il helaya, marna waa ka il helaysaa. sidaa marka haddii alla idmo waxaan ka rajaynaynaa in maaragtay madaxda qaranka iyo wasaaradda gaashaandhigga iyo muxuu ahay ay awooddaas ay laba jibaaraan si cadowgan looga saaro deegaanada iyo degmooyinka guud ee gobolka dalka iyo guud ahaan hirshabelle, gaar ahaan gobolka hiiraan. waxaan codsanaynaa madaxda qaranka ka codsanaynaa, wasaaradda gaashaandhigga ka codsanaynaa, taliska xoog ka codsanaynaa in fayska ama qaabka loo wajahayo cadowgan in wax badan laga bedelo haddii alla idmo. ka gobol ahaanna insha allah waxaan rajaynaynaa in maaragtay kaalinteena aan ka qaadan doono. marka ciidanku waa guulaystay, annagana waa guulaysan doonaa insha allah.